anagoo Bahda Suugaan ee gobolka Sool waxaanu halkan tacsi uga direynaa Ilaahay jannada firdawsaha ka waraabiya Marxuum Abwaan Sangub oo xubin aad ugu weyneyd dadka Islaamka Soomaali dhamaanteed iyo Bahda Suugaanta oo dhan ahna nin aad u xigmad badnaa aad baan ugu tacsiyeynaa ehelkiisa qaraabadiisa inuu Ilaahay jannada firdawsa geeyo oo ka waraabiyo naxariistii janno waxaana jirta oo aan ka xasuusanahay suugaamihii aan ku soo halqabsaday waxa kamid ahaa 4 kelmadood oo aan lahaa suugaanta lama caasiye waa la curiyaaye sida cali ducaaliya baraa loo cajabiyay cadar baana lagu soo shubaa sida caruuskii marjiceeda niman loo cisho caana baa jire anigu magacayga la yiraahdo Abaan Maxamed Axmed Godane marka ugu horeysa horta waxa mahad leh Ilaahay noo qadaray anagoo nabad qabno oo caafimaad qabna inaanu goobtan isugu nimaadno barnaamijkeeguna wuxuu ku saabsan yahay Abwaan Sangub inaanu tacsi u diro Ilaahay jannada firdawsaha ka waraabiyo waxa ayana mahad mudan oo hawsha noo fududeeyay Bahda Suugaan bahda saxaafada sida Abwaan mudan haradigeed marka waxaan leenahay anagoo Bahda Suugaanta ee gobolka waxaanu si weyn oo quwiya oo ballaaran ugu tacsideynaa Abwaan Sangub Ilaahay jannada raxmaha siiyo wuxuu ahaa abwaan caana abwaan qaran abwaan Soomaaliyeed abwaan muslim intaba uu ahaa waxa lagu yiri in Cabdullaah Xasan baab islaan hooyadiisa markay dhimatay wuxuu gabay ka bilaabay muslimko dhan bay hooyadii muslimko dhan waa hooyadii meel u joogaba marka waxaan leeyahay Abwaan Sangub wuxuu ahaa abwaan aabaha ummadda Soomaaliyeed ee xagga suugaanta buu ahaa heesa badan suugaan badan riwaayado badan intaba uu sameeyay riwaayadaha aan kula hadlay waxaan ka xusuusnahay waan kala ilaahay riwaayad la oran jiray waa maadada adduunyada dadkuna waa matalaya riwaayad aad dalka qaali ugu ahayd marka Allah jannada raxmaha siiyo seedina oo sanadku yahay 2019 maalintu waa maalin khamiisa abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed suugaanta xagga xitaa ma garanaysaa ee dhaqanka aad ugu fiicnaa riwaayadihiisii waxaan ka garanayaa Allah u naxariistee riwaayadii la oran jiray qabrigii jacaylka xuud baa laqay jacaylkii inay isagu sameeyeen kala uma hubo riwaayada badan waxaan dadku gobolada ma garanaysaa waa bari buu ahaa inta badan waxaan oomin jiray kooxaha yar yar dhowr jeer waan arkay laakiin sheeko lama yeelan abwaan weyn buu abwaankaas ahaa ilaahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul maut magacaygu waa Saciid Cabdi Samed oo ku magac dheer Murtimeer anagu Bahda Suugaanta ee gobolka Sool waxaanu halkan tacsi uga direynaa abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed Marxuum Abwaan Sangub oo ku geeriyooday wadanka Itoobiya abwaanka weyn ee Soomaaliyeed Ilaahay inuu naxariis janno ka waraabiyo ayaanu u soo ducaynaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto cirifka cirif aad ayaa looga dareemay geeridiisa ama dhammaanba caalamka iyo adduunka oo dhanba wuxuu ahaa ninkani nin qaryaana abwaan weyna wuxuu ahaa nin suugaanta ku soo biiray 60meeyadii isagoo dhalinyaro markii uu bilaabay markiiba wuxuu dardar galiyay Bahda Suugaanta haday ahayd qaybtii fanka wuxuu aad ugu xoogeystay qaybta riwaayadihiisii ugu horeeyay ee caanka ahaa waxa kamid ah oo aan aad loo xusin riwaayad la oran jiray talo iyo talaabo riwaayadaas waxa ku jirtay hees caana oo la yiraahdo masal guur caashiqo waxa qaada fanaanadii weyneyd ee boqorka codka ayana Allah u naxariistay Xaliimo Khaliif Magool laxanka laaxiboon waxa saaray fanaanka weyn Abdul Xamiistaha weyn Axmed Cali Cigaal هاي هستي هالبولو ديجيبو هواي هيري ما هي هنهابان أنكو هايو وي هنقارتاي هيري ما هي هنهابا هردي وايو هرسواي حق هدني يدنا هيسا هيسا بدن أيو لها waxa kamid ahaa riwaayadii aan soo qaadnay iyana caanka ahayd waxa la yiri ay Soomaalidu ku tilmaantaa riwaayadii loogu dadka badnaa ee umadu ay isugu timay ugu galista badnayd waxay ahayd
waa maadays adduunyadu dadkuna wuu matelayaa waxaa ka mid ahayd heestii caanka ahayd ee uu isu qalay labada qof waxaa qaaday labadii fanaan ee caanka ahaa saaraha axmed jalaad dhabarlow heestaasi waxay ahayd haddii beer ku qaybsamo barban adig ku siin lahaa وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون magacaygu cabdikhaalaq maxamed axmed oo loo yaqaano dirseer muydo annagoo ku hadlana afka hal abuurka gobolka Sool waxaan halkan tacsi uga diranaa ummadda Soomaaliyeed adduunka meel kasta ka joogto tacsidii ku timid abwaan maxamuud cabdilaahi ciise sangub waxaanu si gaar ugu diranaa tacsi golayaasha fanka iyo suugaanta iyo golaha abwaanada Soomaaliyeed waxaanu leenahay oo oran karnaa waa tiir naga banaanaaday ama garab naga baxay ilaahay naxariis janna ka waraabiyo waxaan kale ku boorinaynaa ummadda Soomaaliyeed in loo sameeyo ama xukuumadda aas qaran inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun rahmatullahi wa barakatuh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun sangub inna lillahi wa inna raaji'uun